Shan gabdhood oo Soomaali ah ayaa ku geeriyootay shil gaari oo ka dhacay magaalada Minneapolis. Shan gabdhood oo Soomaali ah ayaa ku geeriyootay shil gaari oo ka dhacay magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka. Saddex ka mid ah gabdhaha geeriyooday ayaa ahaa walaalo. Shilkan ayaa ka dhacay magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka kadib markii gaari yar oo ay gabdhahani la socdeen uu ku dhacay gaari kale oo xawaare zaa'id ah ku soconayay. Gaariga shilka geystay ayaa ahaa gaari weyn oo la sheegay in ay boolisku ceyrsanayeen. Booliska ayaa sheegay in gacanta lagu dhigay darawalka mas'uulka ka ahaa shilkan iyadoo haatan baaritaan uu ku socdo. Qaar ka mid ah Soomaalida ka ag dhaweyd goobta uu shilku ka dhacay ayaa sheegay gabdhahan geeriyooday in ay ahaayeen kuwo isku diyaarinayay xaflad qalin jebin ah. Waxay sheegeen in gabdhahan ay ka soo laabteen suuqa iyaga oo soo iibsaday hadiyado iyo alaabo kale oo ay ugu talagaleen qalin jebintooda. Waxay ku tilmaameen shilkii ugu xumaa ee ka dhaca magaalada Minneapolis oo ay ku geeriyoodaan dad Soomaali ah.